بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومهد له سبحانه وتعالى، إلهي بكلي مهد له، إلهي سبحانه وتعالى مسلم كنا قد مهد له، إلهي عن كلي نوسع إلهي مهد له، إلهي رحمات كنا سيا مهد له. وحنا إن شاء الله هاي إن ما أنت هذا الكيجا مناسبة سعادة باتن جودة لا صنع الشدة قرن مدة سومالان إنان فكريا وحي أنا قبل حسبها أنا شيءنا مركورة وحن دمان أنت هالدين يا شعب غير سومالان مدبت شوجا يمد جودة شوجا يمد ميت شوجا مجال شوجا بقى وحلاه هنبليو إلهي بمهدوي إلهي سبحانه وتعالى إلهي قرن مدة نوسع عليه السديد لبعض سنة سعال لبعض سنوات ونبت قليئة ونقول كيني إنه وكتلينه أيام هلا إلهي إن وافق شيء إن عنا كين التوحيد لا إله إلا الله كقرنه أيام هلا بإذن الله كريم كتابك إلهي السنة رسولكنا ونسكن معاملة دونا سأقول أخصابا إن شاء الله تعالى. وهذا المركا وحان كهالي يا جوهر يسوي وآفدا هون في Soomaaliya af Soomaaliga aan aqoonin BBC ka hadla saf mareen buu bixiyay saf mareen waxa ay cudurka aan dhibaato keenin ko yaani ku daara kan waa aafad adduunka loo soo rigaa way dad badan baa inaga dhintay intii marka oo ina soo gaaray number badan baa la sheegay oo isna markii tasku yimi magaaladaas la sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala awood uma lehine إلهي كاني أدون كمانته قلبك دري أبسايد أو كديجي أيام كبرين إلهي نجا بتبادر دولا إننا جنا وين وحرنت وين نفتينا إلى علينا وين تلوينك أي صوص صارين جدد يا خاطرت أو كلامنا وين كبحنا تشهلك اللي يهين وتكلم ما أردكره وأنت وتكلم ما أردكره لكن وحوي ولا سبحانانية جارك اسكتاي دولة هنا عاوي يا شعب رئيس سومالان بعمشتري جينا ولي يبقى إن الدول تاجنا إن لا بربر تاجنا دقالة ما كان الدول كينا كل واغني صون قشة قرن المدينة قصدين وين برناي تدكي نقص ماي إسبربر تاجنا لعكتم لأنه حسن محمد حج رائع بعمشتري جينا هاي ما أنت شرط ممكن بدحونه سي وربحين تلعكتي بحيين آد بان أغشوا أما هالسنتي دولة ده يوم كسوة شوابي يهيئة دي بي ويل نوح عليها أما هالسنتين ما أنت اللي إذا تقف وقفت أنت وحكو ترتاح لما إلو بكره وحنا مركا هلكا وحنا كو أرقني حيرادي كسور دعي حيرادي قاتك qaadka waxaan ogaanay inuu hadda yahay drug maaddoori yahay lana waxaad ka garanaysaa dadka ilaa iyo dee balugubada lugeeyey qaad u doontay si dad magaalo u ekaatay waxaan filayaa waxaa waajib inagu ah inaynu bahalkaa aynu ka tashana sida obyanka looga tashado Afghanistan sida adduunka oo dhan uu ka joojiyay qaadka waa inaynu adduunka loo kaashanayno aynu qaadkan ka tashanay lacagteena way ku baxday xoogeena wuu baxay dhaqaaleena wuu ku baxay dadkeena wuu ku baarbaay qoysku way naga xumaaday qaad aawadeed waa inaynu dadkeena aynu ku qasabnaa aynu barnaa mudarradiisa waa inaynu educate garaynaa dadka waa inuu soo qofku naftiisa ay ka timaado inuu iska daayo miyuu way naga baabiyey tuulooyinkii miyiga wuu galay bahalkaa waxay la tahay inuu ka dhigano ajanda qaran haddii ilaha yidhaaho waxaa maanta u dabaal deginaa taariikhdan 19 walaalayaal Somaliland way ogtihiin waxaynu qaadeen dowladnimadii 60kii baynu qaadanay bishii June ayaynu qaadanay inaga oo riyo inaga soo go'day
inaynu 5 Soomaali keeno oo inagu kaliftay kiilka shanaad hawdi rasiif area oo de boqolkiiba 60 dadku inaga noolaa sidii loo heli lahaa Ingiriis ku taliyay dawladna waan siinaya marka idinka Ethiopia ka wada hadla taas ay noo keentay horta xornimada iyo inaan Soomaali midowno Somaliland shacbigeedu 5 Soomaali way u deynsan yihiin Djibouti laga bilaabo NFD ogaadeen meel aanu tacab gelin oo inuu abaal ku lahayn Soomaaliya ma jirto niida wanaageeni aynu Soomaaliya ku darsanay ee leeyahay hadaynu keeno shuruudo waxa laga yaabaa in midnimadu baabaaday bila shuruud union without condition ayaa lagu kala taas la isticmaalay waxay noo keentay ogeyn xasuuq bay noo keentay ergaawo ilaa Gabiile meel inoo fiyo qabtay ma jirto ergaawada hadda rag sheeganayaan sanaag taayaan meeshii orientation wuu ku yaalid markan tagay ergaawo 1998 dhiigi dadka inta la soo lagu ururiyay hargeysa laga baa ilaa ergaawo meel aanay wadar aanay jirin taqaan xawaalad aanay jirin ma jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo talagalkii maxamed siyaad bare ee ahayd inaynu dalkeena sida Falastiiniintu maanta dibadda ka yihiin dalkoodii intuu inaga aasay 700 oo kun oo keenay oo ka keenay Ethiopia u dajiyay Boorame Hargeysa ee meesha la yiraahdo Berbera u dajiyay saaxib ilaahay subxaanahu wa ta'ala yeelin waqti dalkeena ha gacanta noo soo geliyay waxayna soo maray wax la ilaaho ma dawladnimadeena hawriyanaanta ku dhignay waxaynu qalatay inaynu dad iyo xoolo iyo maalba u hurno xaq baan ku dagaalamay Allahu akbar marka waxa weeye in maanta la inagu yiraaho 30 sano jireen meel ictiraafku waxa uu yahay marka dalkaaga qabsatid taladiisa adduunku waxba is weydaarsadaan way isku baahan yihiin marka waxa weeye mar haddaad adoo ka talinaysid Boorama tagnay aan 1997 anina Corneel ahaa oo reer Boorama Ismaaciil Umar Shimbir nin reer fiiqa ayaa ka ahaa Subeer leeyahay ka ahaa Barsaab oo magaalada isku ka soo baxnay wixii oo yaa soo fasaxo si soo gashay Boorama inuu yiri saasa ahayd arinteen waa isku xilxilay magaalada Hargeysa imay 1988 markii maxamed saad baa la tortori doono Burco magaalada dhexdeeda checkpoints ay jireen Gabiile maalinta aanu nimay dad baa ceel lagu guray nolosha dad lagu gubi jiray xoriyad wax la siistaa ma jiro waxaan eegnaa Somaliland 29 ka bacdi iyo Soomaaliya halka kala marayaan maanta Soomaaliya waa ma jirtaa waxa adduunka la yiraahdo internal sovereignty external waa ictiraaf gudaha qaranimo gudaha iyo mid dibadda maanta inuu tii gudaha weyn haysanaa referendum inuu qaadanay dalkeena laga haysanaa Soomaaliya maanta ma jirtaa 22 ciidan ma jira 22 kun oo ciidan ma jira mid magaalo uma talaabi karto waad aragtay cabaadka ka maqan Muqdisho iyadii baan isku talaabi karin magaalooyinka laga sameeyay magaalada saay gates loo sameeyay soo socotid gates laga furaya kaar lagu geliyo report hadda soo baxay inta ay dawladda hadda joogtay maamulka jooga barnaamijka ka dilay baa yiri iyo inta dhalinyarada al-shabaab ka dishay inta iyagu ka dilay ma badan waa war criminals dayaalada loo kala cabaydaba iyo meel kasta waa Soomaaliya waxay maanta Soomaalina ka dhigtay mihiradeedii waxay ka dhigtay Soomaaliya sidii badqaalo aan loo majaabin lahaa maxamed siyaad bare ayaa majaabin kara waxay arkaysaa shalayto sidii tobakeeni laba inaan u dhashay midna u dhashay magaalada sanaagta bari midna u dhashay Buuhoodle in fact waa reer ergaawe soo Buuhoodle abtarsimaha
ayaa intay yimaadeen midna buuhooda iyo midna wixii baran buu yimi waa dadka inoo taxamar taga dhul aan lahayn xukuma dee kuwii way shaqaysan jireen oo iminka way shaqaystaan oo Hargeysa way ka dhisteen daara dhaadheer Turkiga way ka dhisteen horta way mahadsan yihiin haddii ay noo keeneen oo keeneen reer buuhoodle ina u keeneen dawo waa mahadsan yihiin iyo wax islaan waxyaala laakiin waxaan sheegaynaa anaga culays nagu hayso waa mahadsantii laakiin waxaan kuu sheegayaa inanka yara yidhi buuhoodle waxa ka sanati ma jeerteenaya kama tirsan kamana dhigi karti hadduu shaydaankii maxamed siyaad bare la faqay ee yidhi isaaq dabargo oo adinka idala faqay oo yidhi intaa xamar fadhiisataan ayaa Soomaaliya wax yeeli kartaan been buu idin sheegay shaydaanku iska daa shaydaanka idinkoo Hargeysa joogay berbere oo garka laalaadinayo yaan biidilaa arki doonaa saasoo kale yeeshay oo halkaan dad nafsiga noo soo qabtay waxay doonayaan fidmay doonayaan waxaan u sheegayaa reer baran waa ogtiin ma jeertin idima soo gurmanayo dab idin gelinaya markaa Soomaaliya u kale 5 gobol state ka dhigay degi laadahay fidmo idila jawaab fidmo u joog jeertan waa Soomaalida dhibaatada Soomaali maalintii Maxamed Siyaad la dagaalaminay aan la dagaalaminay Maxamed Siyaad waa ku soo hooyay soo dhiibay maalinta xabashi la dagaalamay Itoobiya waa kuwii dhabarkii naga dhuftay inqilaabka sameeyay ma iyaga Soomaali ku faani kara ma iyaga ku faani kara waxaan ahay dugdiga Soomaali xay ka yihiin lixdankii markii la isku yimi labadii dal isku tirso labadii khiyaamay ninkii inta ka qabana ka dhigtay madaxweynaha ra'iisul wasaare ay waqaatay oo minority xagee Soomaali ku keenaan qaladka dhacay waa qaladka keeneen waxaan leenahay يعني دب بوهود دب يقولين بوهود Soomaali dika maanta u dambeeya Somaliland arujin school mal law and order ma jiro police ma jiro ka qaata ma jeertaan ka qaata Somaliland ka qaata kuwa fiila Soomaali fadhi ka qaata siyaasad ma uqubada arujin ay heli doonta generation dhan baa maanta waqtigooda khalamis halanahay Somaliland iyo Soomaaliya هذا الذي محمد مدحون شيء صفة عم بقول شيء بس ما كان ولا حد لما حيناش 2000 وحنا كل شيء إنه والله بإنتتاع لا بدل الوحي ليلة هشية مركز دال هو كله بحوايا إنه دخل ما تسكم هاي نبض Soomaaliya xadkeedii qolaatay dawlad baan kana oo sheegatay Puntland la baxday iyaga Soomaaliya isma haysan dawlad Soomaaliya oo dhisan oo dhulkeeda haysata oo sharciyeed ku socota ana ma jirto wataas lacag baa lagu qaadanayaa waxay noqotay hooyo musuqmaasuqa adduunka noqotay lacag baa lagu cunayaa dhalinyartaas loola dagaalamo badii baa la bixiyay kalluunkii baa la bixiyay shidaalkii baa la saxay dan Soomaali ma taas idalata xagee lacagta la qaadayo xagee lagu isticmaali doono nabad ma jirtay waa lacag lagu cunayo waxay corruption ki gaarsiiyeen gruubkan yar yar qaxoontigi kureedin qaxoontigi in u dhaleen Muqdisho ay hadda Muqdisho fiila Soomaaliya fadhiya inay corrupt gareeyaan ajnabiga Soomaaliya gareynay lobbying firms way samaysteen waxa la sameeyaa corporate fiican baa loo sameeyaa Rossi picture baa laga sameeyaa lacagta la soo deynaya bar diblomaasiyintay siinayaan bar kuwaas ay siinayaan bar waxay siiyaan ciyaalkan imaka ta social media beenta ka shubiya yani waa khiyaali yakun hore ana khiyaali kuma reality ku nool Soomaaliland la fariisan mayno cid aan ogoleen in laba dal ahayn maanta laba dal aan anagu jirno iyaguna ay maamul la iska ixtiraafsan yahay laakiin aan jirin yihiin ay qiraan la fariisan mayno waxaan ka wada hadlaa waxa weeye sidaan u kala tagi lahayn wixii amahan wada lagu lahayn u kala bixi lahayn dadkayga si lagu xasuuqay xabaashoodii dadkooda u soo urursan lahayn xabaan dib u aasi lahayn wixii inay iska kay dhex yaalay 30 sano san u kala bixi lahayn naba maanta wuxuu soo qoray ku soo qoray Twitterkiisa dadka le Soomaaliya midnimada Soomaaliya waa muqaddas
ilaahay horta muqaddas kelmadda waxaan ka maqlay markii horeysay magaranaysa calimaad maanta waxa ku celiyay ninka ilaa Cabdiraxmaan Baadiye muqaddas kitaabka ilaahay muqaddas diinta saar halkaas uu aqliga ka taagay muqaddas gurigaaga hagaajiso gurigaan maanta muqdisho xor uma mari kartid maanta muqdisho taladeed ma haysid أنا قال عيل واق بحيا ريال عيل واق أنا عيل واق المهم كوس كسعون أي هذه كحكومة عشورتك قاعدة كسيحية أنا أدرك يقولوا سيقبصوا قرع حبينك هاكي شرتك هاجي إنك ريال مقصي ورسنجلي فحيل أفر نبان كعب هذا أفرتوا أشتري بها ما دوحي قرب هارب وكي يربارك هايس المحكمة دو تشوي هرجيس وكين ما تقوليش كيسوا الله سعانات بهايس هذا لو حكم حتى الأهل مقدس الصومال قلت الصومال من نمت سوي عليو متكان أنت الصومالي أو تلي صومال ما كذا اللي حد كرته وحنا كنت لنا نعب يا وحيد نعب دولة النعب كان يعني كان يرى عرسنا يصور عيالك المدرسيين كان هذا وغير ما كان اسمه أمريكا إنجليز وغير قحون تيجي داب لقى قاضي يا لا فريسان منه SS دي بتلا علا شيرتينكي USB لا علا SBM لا علا محمد عمر جاسي إننا لا علا واحد محمد سياد برجالين شن يتبصر أيو صدق سنة كو قاري إنه مقصد كلها يو إنه بده كل صوص صاروا ديالك صحيح وأنا كنت حسيان ادتك اللي يقول هي مقدشة وأنا كنت حسيان ولا ريال waxaan u baxayaa waxa weeye IMF-ta iyo World Bank IMF-ta bank lacagta leeyahay sii deynina waxaan u aragnaa lacagtaas ay tahay lacag la doonaya Soomaali magaceeda lagu cunaa dawladda 6 bilood baa haray meel ku isticmaashay ma jirto Soomaali maalin deyn laga cafiyo ma joogto Soomaali markay noqoto dawlad aan kala baxno wixii la siinayo markaas ay nabad timaado administration ka shaqeeyo and every inch every meter dhulkoodiya oo dawladda isku kala soo sameeysa markaas ay codsan doonaan laakiin maanta in la idin xarxaray qol lacagta Soomaali dusheed ku cuntaan milyan isagana xagee geeyeen milyan waxa leenahay lacagta ayaan la bixin maleena waxa leenahay mucaaradka Soomaaliya ee isbahaysta waxa leenahay lacagta ka dagaalama idinka la kula dagaalamaya Soomaali lagu baabiinaya waa lagu dulcunaya waa lacag lagu dulcunaya baabiinayna marka waxaan leeyahay Somaliland way jiraysaa wayna jiri doontaa biidnillaahi kariim kitaabka ilaahay sunnahana inoo balama doorashadiina waa gelinaa insha Allah taala waxaan leeyahay Somaliland shacabka reer Somaliland resilient ah maaska waa mahadsantii ciidankeena soo majeetayaasha إلا يدي ما كان دجالنا مثلاً دجالنا عيدا كلا دجالنا ما يدين فرفريستان ما يوقع قبطامنا حقا نكون دجالنا أو حقا عيش كقبنا كينا سودي لي أنتم صومالي العكسنا ونسوريين هذا أنت صومالي هالكاتشوك تأكل كسون نفستهر جيستة ما ده يبورني تما خبرنا ما تعسد ليزه وانا قامسين يحمانتي حسك هي مدريه ما كان عليها إذا كينا إن شاء الله تعالى مدحوينها نحن لنا مغو كبحو كوفي كبح سنو وإن لعقت المشاركة لو كريا لعقت لو كريا علينا إن شاء الله تعالى وحينو هينو وإن عيدك كلنا هذه أدبان مراقبة دروين ما أنت شريت ودارت مدحوينو تجي إن داوضي وانشرعوا هي بديا كيسي نما إذا كينا وإن سنة وحيلي نكي رئيس وزاره باكستان مبوطو markuu ay samaysatay magaranaysa India ay samaysatay qumul duriya wixii haday nagu kalifiso inaan cawska cunno way inaguna samaysana oo kii samaystay haday nagu kalifiso inagana maanta inaynu roodi ku ora cunno waa in ciidan dhisana ciidan balaga baqaya iyo dhaqaale labadaba dhisana dalila waxaan halka ku soo gaabay waxa weeye waa rabshada magaranaysa elefin waxaa leeyahay reer Elfweyn
ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala 5 sanadood ayaa dumarkiini caarkiini caruurtiini ana iskuul tagin dumarkiini ku dhintaan ay ku umulaan dibadda way bilaa cilmi way bilaa horumar yihiin way bilaa biyihiin way jirto gasha ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala dadku isdili jiray reeruhu way isdili jireen markii wala dhameyn jiray laakiin lama siyaasideyn jirin lacag dibadda lagama doonan jirin waxaa leeyahay kuwa lacagta dibadda ka soo diraya ee diaspora isku sheega qayrkiin bal dhegeysa reer Soomaaliya waxbay barteen dhaqaalay samaysteen iyagoo cola oo dowladda hadda waxay ku hadsan ku maqlimaysi dadkiina halkii u soo qaxleed oo u iman lahayd ee lagu aslaha lacag soo dirtay isku dilo waxay arrintaa lagu soo noqday lagu soo celiyay halkii si lagu heshiin jiray labada reer is dilay dhaqanku halku ahaa salaadiintu iyo uqaashi ha gasho dowladuna wixii looga baxdo asamayso iyo go'aamada laakiin gacan maroojis nabad kuma timaado hubka dhigista waxay ku timaadaa dadka oo ogolaada nabadu markay timaado dadka la heshiisiyo markaasaa haddii alla yidhaahdo weydiin doontaan in hubka waaweyn la soo xareeyo dhalinyarta xoolii ka baxeen ee qoriyaa sita qorigii geeli ku raacin sita waa la shaqaalaya shaqaale kale ma jiree laba arrimood bay noo furan mid waa midana ciidanka laga dhiga la ciidameeya si qorigiisa sidii disarmka loo sameeyay la sameeya midkan waa in lagu sameeyo food for work wadooyinkan ku dhisna wadada marka ceerigaabo burco waa in laga shaqaaleeya food for work ceerigaabo mayd waa in lagu sameeyo food for work dhalinyarta qaadka sugisa ee maqaansan waa inaynu shaqaaleyna waxaan ku soo gadweynayaa ilaahay subxaana wa tacaala baan mahadnaqaynaa dowladda waxaan leenahay waan kula garab taaganahay koofin dagaalkiisa Soomaaliland difaaceeda laakiin waxa loo baahan yahay cadaalad waxa loo baahan yahay inclusiveness in maamulka loo sinaado waxa soo noqonaysa looma sina gees bay ka raran tahay waa in la hagaajiya qaranka iyo maamulka waa la kala saara waxa weeye qaranku waa lama huraan maamulku iska tagaya dowladba dowladda ka dambaysa waxbay ka sii hagaajinaysaa tii hore qaladkeedii way ka faa'iideysanaysaa taas waa aynu leenahay asxaabta macaaridka waxay maanta xumeeye kulmiye haddana insha Allah anagu nimaadno waan hagaajin doonaa insha Allah taala saasa maamulka uu saas u tadawur qaata laakiin qarannimada maamulka waa xumaadayo in adeerkay baa xaqdaraygu sameeyo oo iga eexday marka waan duminayaa dad waxaas adduunka laguma noolaado adduunka laguma noolaado dadka reer muqdisho waxa leeyahay warheeriyada iska tuura war meesh Soomaaliya Soomaaliland meel ay cashuur ka qaadaan oo xukumaan waa magaaladiina airportkiina bay xukumaan cashuurtiina bay qaataan Turkiga ay ka dhistaan daar oo imanka Turkiga taga muqdisho kala ka samaysantay waa xoolihiina Hargeysa lagu soo dhisaa xoolihiina xagee ka waalinti markay Soomaaliya ay timaado ay isku yimaadaan baydhaba timaado ay garow timaado ay Kismaayo timaado ay beledweyne timaado marka ayadu kana waxa taana waa tin muqdisho reer banaadir laakiin anu dhulkayga ana xukusanaya adaan ku xidhaya adaan ku cashuuraya daadar waxa laga ma ark maxaa u dagaalanteen maxaa dadka u dishay rag dadka abada ku darteen ee masaajidada ku kufsateen dumarkooda ay taan hooyna xukuma oo nagu arsa anagu waan saamaxnay watawana ilaa saacad dambeysay dhaxday ka dagaalamin ilaa saacad u dambeysay ay dhaxday nagu dadka nagu kicay ka dagaalamin bur cali isku saamax si meeyay weydikii arsaday sidii huutuga haddana waxa taan hooyna xukum dawkay farmaajo wax ka qora ay isticmaalay in khayr in adeerkiina khayr la ilaahay waxa uu yeelay jamaal waxa ina uu yeelay magana saay ee khadarka anaga ee Hargeysa oo yahay waxa reeb qoyga dusha iska saaray maxkamadii badii ya reer garow khaarijyadii wadaaliyo xagee joogtaydu magaalada Soomaaliland waa muqaddas calo xagee Cabdiraxmaan xagee joogtay weeraya Cabdiraxmaan baadi xagu joogay you are nothing marka aad wax noqo marka iyad at least waxaan jeclaystay inaan ku daro arrintan baawurti qaad kale la wareegay horta arrintaas waxaad moodaa inaan ku degdegnay
qaadka hadee muddaa la joojiyey waxaa la joojiyey ilaa dhowr iyo 20 maalmood bay ahayd qofkii qaadka markaa keena inuu dembi galay waa la ogyahay laakiin wuxuu mar haddaanu mamnuuc ahayn forever in xawlihiisa la wareega way fool xun tahay talabaad waxa weeye maalinta hore aan sheegay marna aanu hela joojin ma oran lana waxaan ogaa in 60% dadka shaqeeya ay ku nool yihiin qaadka noloshooda ka soo saara ayaan ogaa in dadka la wacyi geliyo moojaan haddana madaxweyne waxaan waa bilgaray madaxweyne dadkii baabuurta loo celiyo intaasoo qoys oo maanta reer Soomaaliland ayaa maanta aan wax ku qarsan haysan oo u soo saari jireen lacagta baabuurtaasi baabuurta yaryar bacha bahasha la yiraahdo gaagaabayo marka waxaan leenahay madaxweyne arrinta ciid haddii la yiraahdo dadka ka farxi ya u celi baabuurti qoysasku hayeen qoriskoodii wuxuu ahaa amar degdeg u ahaa lagu degdegay buu ahaa qaadka waa la fasaxay tan waqtiis gaarin baa la fasaxay de marka waa inuu ciqaabta proportional noqota ciqaabta qofka dambiga gala waa inuu dambigiisa in leeg la xukuma weeye in ka badan ma fiicna wa afu an nas ilaahi subhanahu wa ta'ala marka waxaan leeyahay madaxweynaha ka codsanay in baabuurta cafiyo dadka la xiriir cafiyo ya qaadkana waa tala qaramin ka yeelana balaadan ka yeelana adduunka la kaashan waa drug ma quut awliya oo quut shaydaan ya gabar baa sheerta si fiican waxa soo tiri haddaanu helina wax naga bedelo qaadka wax qoran naqaana bay tiri aan ka soo saaran lahayn quut daruuriga waanu jecel dumarka inta kiisho waan naqaan waan shaqaaleyn doonaa hadda leeyahay qaadka laakiin waa in iska badnaa. Assalaamu calaykum.